قلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان ولاalahan daabanaya meel baduka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkiina aan ugu hadlaynay qisada Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam qaybtiisa saddexaad Fircawn ayaa habeen kamid ah habeenada wuxuu ku riyooday waxay tahay ayadoo dab ka imaanaya dhulka Falastiin dabkaas oo gubaya wax walba oo ka soo horbaxa dabkaas oo soo socday wuxuu gaaray waxay tahay Masar ilaa boqortinimadiisa oo dhan uu baabi'iyo kadib asigoo naxsan ayaa hudada ayuu ka soo kacay dadka riyada fasira ayuu u wacay wuxuu ku dhahay waxay tahay xalay riyaan ku riyooday ee ii fasira maxaa laga wadaa riyadaas kadib ayaa waxay u sheegeen waxay tahay dhamaantooda ay isku raaceen riyadaas in laga wado in uu dhalan doono wiil cunug inuu dhalan doono cunugaasna uu sabab u noqon doono in boqortinimadiisa iyo awoodan hadda uu haysto oo dhan inay baaba'do wiilkaasna wuxuu ka dhashan doonaa waxay tahay reer bani Israa'iil kadib Fircawn aad iyo aad buu u naxay wuxuu shir iskugu wacay waxay tahay dhammaan wasiiradiisa wuxuu ku dhahay waxay tahay cunug walba hadda kadib dhashta waa in la dilaa khalaas bas way isku dhamaatay yaani riyo arkayadaas oo boqortinimadiisa in la baabi'inayo asigana muxuu sameeyay wuxuu dhahay waxay tahay cunug walba qof walba dhalanaya hala dilo ajiib boqortinimada jacaylka yaani kursiga ilaa meeshaas ay qofka gaarsiin kartaa yaani sida aysan u baabi'in kursigayga qof walba hadda intuu waxba iga ma gala aniga kadib waxa dhacday waxay tahay in ciidamadiisa oo dhan magaalada ay galeen cunug walba oo dhashta in la dilo cunug walba xitaa yaani maamooyinka oo reer bani Israa'iil kamid oo la xitaa waa la qori jiray si loo ogaado yaani cunuga si dhashan doona kadib ayaa cabaar markay socotay ayaa wasiirada ayaa Fircawn u yimaadeen waxay ku dhaheen waxay tahay reer bani Israa'iil cunug walba oo dhashta waa la dilayaa hadow qof noo shaqeeyo ma lahan shaqaalaha dhan yaani shaqaale dhan ma helayno kadib go'aan kale uu soo saaray go'aankaas oo ah in sanadna يعني لديله سنتنا ليسك دافو يعني سنت كان ولا ديليا سنت كسو سخدن ولا دافيا sababtoo si يعني shaqaale u baahan yahay bani Israa'iil wala shaqaaleysiin jiray shaqaale ahaayeen dad daciifiina ay ahaayeen ajiib halkaas markay marayso ayaa waxa dhacday waxay tahay arin aad iyo aad u ajiib ah arintaas oo حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل بني إسرائيل فرعون أدبو أدوسن جري وكوش قيسن جري وظلمن جري أما كستو وكفولن جري لما تشن جرين بل حتى هدي شقيان وح مسين جرين إسكاب دافبو إني قوامة أسيقى أوغار إني وحكا قاران يوحي لمده أيضا سيداس أي تهي أمري فرعون إن ويل كستو بني إسرائيل وداشتو سند لدلو سند كان لدافو
ayaa waxaa dhashay waxay tahay sanadkii cafinta ahaa in uu dhasho nebi haaruun calayhi asalaatu wassalaam walaalkii weynaa ee nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam walaalkaa qiimaha badan walaalkaa sharafka badan oo berito dhihi doona nebi muuse ilaahayu asigana ka dhig mid dacwada iyo kheerka fircoon dulmigiisa aan baabi'ino ilaahayu ka dhig dhihi doono ayaa dhashay wiilka mucjisada ayaa dhashay ayadoo sidaas ay tahay dadkii qowmkii reer bani israa'iilne iyo fircoon ciidamadiisa iyo dhammaantooda ay magaalada argagax ay ka muuqato ayaa waxaa uu qaaday waxay tahay nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam hooyadiisa uur bay qaaday uurkeeda way qarsan jirtay si aysan u arkin reer fircoon waxay ahaan jireen bal dumarka uurka leh way u diiwaan gashneed way u qorneed si marka cunuga uu dhashto ay u dilaan walciyaadu billaah cunug wax uusan galabsanin riyo boqor uu arkay riyadaas inay rumoobayso inay beenoobayso uusan ogeyn bal xitaa haddii uu aaminay inay runtahay riyada dhacayso wayba dhacaysaa boqortimiis waa la qaadan doonaa muxuu ilmaha ka falayaa muxuu ilmaha ka doonayaa muxuu ilmaha oleynayaa waa dulmi waa xumaan waa shaydaannimo qofka xumaanta wadane waxa u cad waxay tahay si uu u gaaro waxiisa wax kasta wuu baabi'inayaa nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam hooyadiisa caloosheeda way qarsan jirtay bal bannaanka badanaa uma bixi jirin si aan loo arkin loona dareemin in ay qabto uur iyo wixii la mid ah fircoon wuxuu lahaa waxay tahay magaalada uu ku faafiyo dad jaasuus u ah oo islamarkaa sheegaya naagta dhali rabto ama naagta uurka leh bal wuxuu adeegsan jiray waxay tahay dumarka wax dhalin jiray oo umulisada ah si ay ugu sheegaan gabadha xaamilada ay gabadha xaamilad aan ahayd fircoon dulmigiisa way baabaaday cadaabtan ugu xun ayuu ula dhaqmay reer bani israa'iil ayadoo sidaas ay tahayne waxa dhashay waxay tahay wiilka mucjisada wiilka bedeli doono wax kasto oo dulmi uu sameeyey fircoon waxaa dhashtay waxay tahay wiilka asiga iyo walaalkiisa iskaashan doono isla markaana noqon doono dad iftiin iyo qorax wanaagsan u sida magaalada iyo boqortinimada reer bani israa'iil sida awgeeda su'aasha waxay tahay sidoo buu ku badbaaday muuse calayhi asalaatu wassalaam sababtoo ah wuxuu dhashay waxay tahay sanadkii dilka fircoonna ciidamadiisa magaalada uu ku faafiyey bal dumar walba way la socdeen xaalad kastoo ay ku sugan tahay sidee buu cunugan ku dhashtay sidee buu cunugan ku badbaaday sidee baan loo ogaanin in ay hooyada nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam uur aysan qabin taa dhammaan waxay ahaatay ilaahay subxaana wa tacaala doonistiisa bal ka waran walaalayaal hooyo uur leh uurkeeda ay u dhibaatoonaysay dhib badan ayuu kala kulmaysay isla markaasina fircoon dulmigiisa iyo xumaantadiisa uu dulminaya reerka bani israa'iil iyo dadka magaalada la degnaa uu addoonsan jiray uu ku shaqaysan jiray in xitaa ilmahooda wax aanan galabsanin dili jiray soo xumaanto soo ma ahan soo wax dhibaato soo ma ahan dhibaatadaas ayuu ku samayn jiray reer bani israa'iil su'aasha waxay tahay nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam sidoobu ku badbaaday badbaadadiisana yaa sabab u ahaa aan isla socon insha allahu tacaala حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء